madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo soo gaaray wadanka Itoobiya gaar ahaan caasimadda Addis Ababa ayaa maanta madaxweynaha iyo wafdigiisu waxa ay kulan la qaateen wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka Itoobiya ahna gudoomiyaha xisbiga dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Axmed Shide kaasi oo ku qaabilay xafiiskiisa magaalada Addis Ababa wafdiga madaxweynaha oo ay wehelinayeen sidoo kalena ergeyga gaarka ah ee Somaliland u qaabilsan midowga Afrika Abdullaahi Maxamed Ducaale iyo xubnaha wafdiga ee hore ula socday madaxweynaha Somaliland oo ay kamid ahaayeen wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda caafimaadka maaliyadda iyo ergeyga Somaliland u qaabilsan wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland Dr. Adna Aadan madaxweynaha Somaliland sidoo kalena waxa uu kulankaasi la mid ah la qaatay madaxweynaha dowlad deegaanka Itoobiya mudane Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Cagjar oo isaguna si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweynaha iyo wafdigiisa caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa madaxweynaha ayaa mas'uuliyiintaasi kulamada uu la qaatay waxa uu kala hadlay xiriirka labada dal u dhaxeeya waa Somaliland iyo Itoobiya oo xiriir fiican oo soo jireen ka dhaxeeyo Cabdikariim Saciid Saalax telefishinka Home Cable Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida